بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا حاجة هذا ومحسنتين سيتي بلاس صومالي هنا يقع سوتين برنامج كان فوت مجمري وحي أفر بقولي صدن يو 5 كيلومتر دنك وقوي كحيتا مقالة إدمنتون ومقالة شدالك لغا قضب ألبرتا أما لو يقان أويل سان وحانو كنول قومية ذا كلا دوان وحافظ مجمر الله أساسي ماي 1947 وحال مقالة أهان لو أقونصدي سبتمبر كوديدا 1980 أنا إسهان وحال الله مقالة دان فوت ماك تيرادا دادكو كنول وتضواتني سيديد كن 382 وتركوب كلا سمي لو كن إيا شاني توكي واحد تركوب وصومالي دلو سمي مجرطو balse markaad dadka warwareysateed oo Soomaalidu ku nool magaalada Fort McMurray qays ahaan dadka waxay ku qiyaasaan inay gaaray Soomaalidu ku nool ilaa 3000 oo qof balse ma jirto tirkoob rasmi ah markii loo fiiriyo maciishad ahaan sida magaalooyinka waaweyn Calgary iyo Edmonton wax yar way ka qaalisan tahay waxaana yeelaya meeshii ku taala magaaladan iyo inay tirada dadka ku noolna ay kooban yihiin marka dadka businessyada leh qiimaha wax yar ku daraan marka inkastoo maciishadeeda qaali xadaafnayn marka loo barbar dhigo tuulooyinka qaar oo sida Brooks ama Medicine Hat marka Fort McMurray waxa dhihi karaa nolol ahaan meel xun maahan waa meel shaqaha satid aad ku noolaan kartid wali Soomaali badan ayaa ka shaqeysa oo shaqo ama ku nool oo halkan ka shaqeeya ama kuwa waxa jira magaalooyin kala kaagdhow ka yimaado oo soo shaqo doonta halkan inta badan Soomaalidu waxay ka shaqeeyaan magaalada banaankeeda ama saayidka waxa loo yaqaan oo meesha shidaalka laga qodo ama oil sanka marka Alberta markii la hawo meesha inta badan Soomaalida shaqeysata ay ku nool yihiin fursadaha magaalada way yar yihiin oo magaalada laakiin magaalada banaankeeda shaqooyin badan jira wax Somali community oo ka jira Fort McMurray oo taxadarka ma jiro taasina moogi sababta ku dhacday waxaan rajeynayaa maalin in Soomaalidu ku nool magaaladan ay community samaystaan taasoo caawin karta dadka cusub oo shaqo raadiska ah